السلام عليكم والسلام عليكم walaalayaal maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago video yar oo ah ku saabsan blockchain iyo cryptocurrency iyo bitcoin waxa ka dhaxeeya iyo faa'iidada ay leeyihiin iyo waxa ay adduunyada ku soo siyaadiyeen adduunyada maanta ku noolnahay insha Allah waxaan rajaynayaa Ilaahay inuu ila garab galo wixii tabarteeda ah oo aan ka fahansanahay aan kaga faa'iideeyo ciddii aqoontaas ka badan u leh iyadana waxaan ka codsanaynaa inay yani commentiga nagula soo xiriirto si macluumaadka aan u kala faa'iidno marka sida ognahay waa wada maqalnay bitcoin iyo cryptocurrency lacagta electronic ah akhbaara baa ka maqalnay suuqyada iyo meelaha lagu kala iibsado qaasatan dadkeena Yurub joogo way jiraan dad Afrika joogo iyagana la socdo ama fahansan waxyaabahaas marka waxaan rabaa يعني أنا رأيي iyo sida ila tahay iyo waxyaabaha aan arkay oo yani inay la wadaago marka hadda waxaan ka bilaabaynaa Cardano kan waxa la yiraahdaa Cardano waa cryptocurrency website kan waa website ugu weyn ee lacagaha electronic lacagaha hawada la isku mariyo oo digitalka ah lagu kala iibsado ama lagu ogaado qiimaha shay walba intuu dhacay marka meeshaan tagto waa kaasa waxa la coin market cap boqolka ugu khatarsan waa arkaysaa boqolka ugu khatarsan kor yaalaan inta waxa ka jirta exchange-ga bitcoin ayaa number 1 ah XRP waxa soo dhan ka wada hadli doonaa kan waxa waaye qiimaha ku fadhiyo halkii shay qiimihiisa fulumka 24 saacadood inta suuqa la dhex wareegayo ama qof haysta ama company haysto 24 saac ugu dambeysana sida uu isku bedelay marka muhiimadeena waxa waaye inaan fahanno cryptocurrency-ga lacagaha digitalka iyo blockchain maxaa ka dhaxeeyo maxay adduunka ku soo kordhinayaan okay hadda waxaan galeynaa Cardano markaan galno waa kana Cardano markaan galno Cardano muxuu yahay Cardano qayb waa lacag electronic ah oo ay iibsan karto haysan karto oo ku saamaxayso company-ga leh Cardano ina adiga aad share ku yeelatid ama inaad qayb ka noqotid okay Cardano muxuu qabtaa muxuu rabaa adduunyada inuu ku soo kordhiyo iyo yaa ka abuuray yaa asaasay ama ragga ka shaqeysta ama ragga ka dambeeyay fikradan iyo maxay ka damacsan yihiin okay Cardano horta waxa la asaasay Cardano waxa asaasay raggan founders waa arkaysaa ragga company ka dambeeya waa raggan ninkan waxa la yiraahdaa Charles Hoskinson sida ujeedaanba kuwan executive ka waaye qof walba magaciisa wixii meesha ku qoran tahay wixii macluumaad waxa script oo waxa dhigaa video hoostiisa marka meesha saad ka heli kartaa okay Cardano marka kuwan waa ragga sameeyay muxuu rabaa adduunyada inuu ka bedelo muxuu rabaa inuu ku soo kordhiyo Cardano qaybta lacagta daan ka tagno oo qaybta faa'iidadiisa aan tagno faa'iidadiisa wuxuu isticmaalaa blockchain waxa la yiraahdo oo bitcoin ayaa saamaxa blockchain marka Cardano wuxuu rabaa inuu sahlo Ethiopia ogtihiin Ethiopia waxay haysataa cafe fara badan cafeega aad ugu baxo ama wadamadeena Afrika waxyaabaha aan haysano oo noo baxo dhibaatadan haysta waxay tahay gacmo badan ee martaa marka qofka beerta leh ama qofka wixii asaga iska leh waxa laga yaabaa faa'iido yar inuu helo wax yar oo helo laakiin ninka dhexda ku jiro oo soo dhoofiyayo lacag si hela kan Europe ka sii gadan lacag ka hela marka Cardano waxay sameeyeen software ama program saamaxay qofka Ethiopia jooga ama Afrika meesha waa ka joogay in uu shayga uu haysto oo geliyo website-kaas oo geliyo app-kaas oo na ka register gareysnaado meeshaas marka qofka Yurub jooga ama qofka adduunyada joogo meesha uu ka order gareysaa meesha uu ka dalbanaya wuxuuna ku bixinayaa lacagta wuxuu ku bixinayaa
Cardano marka ninka Latin America jooga ama Mareykanka ama America jooga ama Mareykan jooga ama Canada jooga ama Australia jooga waxaa haystaa Cardano kan Ethiopia jooga Cardano haystaa ninka Cardano oo haystaa softwarekeeda iyo alaabta u gaday marka ninka Australia jooga wuxuu rabaa inuu kafeega Ethiopia gato meeshii ay ahaale 3-4 gacmood inuu soo mar kafeega si toos ah uga gada kara marka teknolojiyada noocaas ay wadaan waa arkaysin Charles Atkinson waa kana wuxuu deal la soo galay ama heshiis ay wada saxiixdeen wasiirka Minister of Science Ethiopia iyo teknolojiyada waa arkaysin sawirkiisa waa kaasaa dowladda Ethiopia waa kaasaa marka Cardano marka wuxuu rabaa lacag ahaanna inuu yacni oo dadkii u safe gareeyo maadaama qofka Australia joogo oosan lacag Ethiopian haysan oo dollar haysto oo dollarka Ethiopian laga dhigayo Ethiopian kadib wax ku gadayso ama qofka Ethiopia joogo alaabtiisa markuu dhoofiyayo koo waa inuu yacni caalamka markuu soo gelaa waa inuu lacag dollar laakiin hadda wixii oo dhanba waaba la fududeeyo waxay rabaan inay ka dhigaanba wax electroniga oo ninka Australia joogo Cardano iibsanaya kan Ethiopia joogana Cardano la siinaya Cardaniisana lacagtiisa digitalkan wuxuu kala baxaa bankiga Ethiopia oo kaari wax walba la siinaa kaas waa kaasa intaas ugu baxnay faa'iidada kaliya oo leeyahay marka intaas hadda waxa liye boqolaal kale oo faa'iido oo leeyahay oo ama dharka ha noqoto ama muuska ha noqoto ama xoolaha ha noqoto wax walba oo yacni anaga wadamadan Afrika ka soo baxo okay kaas intaas ugu gudbaynaa insha Allah aad u sii faahfaahin doonaa laakiin hadda waxaan rabaa inaan ilaa 3 ilaa 4 waxyaabaha ay soo kordhiyeen iyo waxa ay rabaan adduunyada ka qabtaan inaan helno adduunyadana meeshaan ay u wada socotaa adduunyada meeshaan u socotaa Afrika kaliya ma ahane hadda aragtid hadda meeshaan oo kale waa Dubai qorshe waxay diyaariyeen 2020 ah in dawladda wax walba oo documenti ama wax walba oo lacag ah oo lees dhaafsado ama caafimaad ha noqoto ama ha noqoto wax walba in lagu base gareeyo blockchain wax electronic base lagu base gareeyo markaas wax walba waxaa idin dhigaa strategy in 2021 how can Fitopia aid the government in doing marka hadana waxaan galeynaa kambaniyasha blockchain-ka ah ee wax soo saaray ama ku soo faa'iideeyay wax hadda kan oo kale waxa la yiraahdaa Sirin Lab company Chinese ka dambeeyo wuxuu soo siyaadiyay telefoonkan electronic ah oo aan cid bini aadan aysan jabsan karin hadda suuq aado marka hore qaalo hadda way raqiisiyeen hadda dalba kartaa oo dhala dhigi kartaa marka telefoonka waa kaasa waxa la yiraahdaa Sirin Lab waa kaasa waa dalba kartaa marka macluumaadkiisa iyo wuxuu ka sameeyay inta kala roo yahay waa kaasa hadda waxa lagu iibiyay Amazon hadda dalba kartaa waa telefoon ka ammaan badan iPhone-ka ugu qatarsan maanta ka ammaan badan ama ka qatarsan waay marka weli suuqa ma soo gelin weli ma lama baranin kaasna waa kaasa haddana insha Allah kaas intaas oo gudbaynaa waxaan kale oo aan galeynaa qaybta dharka iyo baabuurta iyo logistic alaabaha yani sida aan China kale aan ka dalbano anaga Afrika ogtiin China inta badan wax ka gadana laakiin China waxaan ka gadano si aan u ogaano inay waxaani wax aysan xoogaa quality yar leeyihiin waxa la soo saaray kan VJ nalha VJ marka wuxuu rabaa inuu qabsado wuxuu rabaa suuqa dharka hadday noqoto cuntada hadday noqoto daawada hadday noqoto baabuurta hadday noqoto baabuurta kale waa ognahay waxaa laga yareeyaa kilometerka ama mileage-ka laga yareeyaa dharka waa la soo koobiyaa ama dhar feega la iibiyaa marka hadda deal waxay kula jiraan dukaanka ugu weyn dukaankan waa wada naqaana Yurub ku yaala wadamada reer galbeedka weli South Africa xitaa inuu ku yaala Maleha Africa inuu ku yaala jeclahay marka insha Allah waa kaasa OM-ka waxay rabaan markaan waa gudbinayaa
dukaanka idil kala galo kaasa marka wuxuu ku sahlaa dharkii meesha laga soo saaray ciddii soo saartay iyo kambaniga sax ma yahay iyo inta gacan oo soo maray si aad ugu qaldamin beerahoo kaleento waxaa la rabaa in daawooyin ay u adeegsadaan wax walbo qofka saas u iskaan gareeha shaygu iibsanayo marka shaygaas wuxuu ogaanaa cidda soo saartay kambaniga ka dambeeyey iyo wax laga sameeyey inay waxaan wax quality aad u sarreey yihiin inay wax quality yar yihiin iyo inta gacan oo soo maray marka wax dambe oo ma jiri doonto sida adduunyada ku socdo wax dambe oo la koobiyeeyo iyo wax dambe oo laisdaba mariyo ayay rabaan inay yareeyaan sida idin sheegabo waxay rabaan inay xitaa wakaasa logistiga yani waxyaabaha oo maraakiibta diyaaradaha oo qofka u geenayo anaga ma haysano waddankan oo kale boosta ma haysano laakiin hadda reer galbeedka boosta xitaa way ka tageen waxay rabaan in ay adeegsadaan diyaaradahan yaryar qofka oo u geeyaba gurigiisa waxa ooba laga maarmaba baabuur iyo gaari iyo waxaas VJN waa cryptocurrency laakiin lacag ahaan waaye marka kambaniga wuxuu ku qasbaya marka inuu lacagti asiga oo leeyahay ila maalin walba haddii lacago kala duwan hadda markaa lacagta Soomaaliya haysatid oo rabtid inaad China wax ka gadatid waa inaad dollar ka dhigtid dollarkaasna yaan ka dhigtid laakiin hadda VJN oo hirgalo almost hadda uu hirgalay hadda uu hirgalo suuqa galo oo ay teknolojiyadan horumarto lacagtada Soomaaliga VJN ku iibsanaysa oo waddankaaga ah VJN-kaas adduunka meesha rabto wax u gada kartaa marka cryptocurrency-ga faa'iidada ay leedahay waa kaasa marka markii aad iibsatana wixii wuxuu ku saamaxaa waxaan aad iibsatay inaysan ahayn wax fake ama aysan nimanka gaagada aysan ahayn niman tuuge oo niman la xaqiijiyay oo iyaga kambaniga ay xaqiijiyeen ay yihiin marka iyaga kambaniga faa'iido yar ay ka qaadaan commission yar ay ka qaadaan marka waa kaasa insha Allah waxay noqon doontaa cashiro noo socdo oo ama kuwan oo kaleento wixii su'aal qabtiin oo isu weydiin kartiin insha Allah qaabka loo iibsado iyo qaabka la saga gado oo kale waa tus doonaa insha Allah waxaan kale tus doonaa qaab maalin walba internetka looga helo $1 ama $2 ama $10 ama $100 wixii aad markaas ay niidaada ku jirto iyo qaabka cryptocurrency-ga loo sameeyo trading-ka ama wax suuqyada la kala gado waxaasoo dhan ay tus doonaa maanta insha Allah videogan intaas ku eg yahay waana mahadsantihiin insha Allah waxa waaye waa intaasna ku ekaan doontay waa sii wada doonaa cashiradeen wa calaykum asalaam ورحمة الله وبركاته.